إنا لله وإنا إليه راجعون. وحمان تلاصي بروفيسور حلبان محمد برقد ميغان oo maalintii shalayaad ku geeriyooday magaalada Boorama isagoo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland. Marxuumka ayaa waxa uu ku dhashay magaalada Boorama sanadii 1947 waxaana aas qaran loogu sameeyay magaalada Boorama. Aaskan qaran ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta golayaasha wakiilada guurtida wasiirada maamulka gobolka laamaha dawladda ee gobolka Awdal maamulka degmada Boorama oo ay weheliyaan golaha deegaanka salaadiin uqaal waxgarad aqoonyahan maamulada jaamacadda Camuud iyo dhammaanba qaybaha bulshada ee kala duwan. waxaanay dhammaantood mas'uuliyiintaasi ay ku dheeraadeen taariikhda marxuum Maxamed Barqad Miigane asana u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay dhammaanba reer Soomaaliland oo badu ahaa bare aqooneed. hadaladoodina waxaa ka mid ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan taxsi culus u dirayaa inta ehelka u ah xildhibaankii aynu maanta jinaasada ku tukanay محمد برقد ميغان بروفيسوركي إلهي نحريس جناها كورابيه إهلدي حاسكي أبدكي وكتغي waxaan kaloo taxsi xooga u dirayaa inta ehelka waa aqoonta inta cuskata buuga iyo qalinka intii uu wax baray محمد برقد ميغان annagu iskulaas baan ahayn isku markaan secondary ayaan ku wareegay secondary ku wareegay markii dambana isku guddi baan ahayn gudoomiyuu noo ahaa in wanaagsan buu ahaa in raxmad badan buu ahaa in aan dadka ka qaloon buu ahaa aad baan u garan in badan martay waan ninaan isku daahayn baan ahaa marka waxaan leenahay ilaahay simri man allah inaga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin dhaa'iqatul maut ilaahay ha u raxmado naxariistiisa iyo ridihiisa ku aamino oo ku qaabilo walaalkeen المرحوم بروفيسور محمد برقد ميغاني وأن ساكا هالكان آسكيسي ومدر هير سوماليين ودان isugu timiday xubin weyn oo ka baxday golaha wakiilada Soomaaliland xubin weyn oo ka baxday aqoonyahanka Soomaaliland xubin weyn oo maalinka maanta ka baxday aasaasayashii qarannimada Soomaaliland ilaahay ha u raxmado walaalkeen بروفيسور محمد برقد ميغاني qaranka Soomaaliland iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkiisina samir iyo iimaan wayna ilayhi raaji'uun kabigan taaba inoo wada dambaysa safarun baynu ku jirnaa safarkun buu inooga horreeyay nin koobay waxbarasho iyo horumar iyo siyaasad oo inta dee waa la tabi dabcan laakiin waa dastuurkii ilaahay inoo dhigay waa sunnihii laynoo sheegay waa sharcigii ilaahay inaynu iska wada daba tegayno oo cid xaraysa aanay jirin إنا لله وإنا إليه راجعون. ضلنا بعض الجامعات هرقيسة أرديدي معهم كبير واحد يدارين محدنا لكن واحد لما أنت أنا ولا هاي سطح وحنو بنا ولكن إلهي دمبي إسحاق أفو إلهي جنة هكي سبدي من الله كسي غيركي قويسكي يدمانا نقدم. إنا لله وإنا إليه راجعون. مرحومك محمد برقد ميغاني إلهي نحريستي جناها كورابيو إهلديسينا سمري إيمانا نغسي waxaan tacsiyeenayaa eheladiisa waxaan ka tacsiyeenaynaa baxdii waxbarasho oo muddada dheer ka soo shaqaynayay الله نحرسته محمد برقد ميغاني أنا طبعاً أنا صاحب قاريها مدة دير محكومة جنة كلها وكيلها اسمه كرسي بانو هين محمد برقد ميغاني لبو قبصدي وتوعها isaga in kale waxa nimanka ugu cilmi dheeraha xagga golaha wakiilada 22 ama 23 bay ahaayeen 23 bay ku jireen golaha isaga cilmi jir riigu ugu cilmi dheeraha waxaan koobsaday xagga dee waxbarista ardayda cilmiga sayniska muddo dheer buu ku jiray xildhibaan maxamed miigane الله نحرسته إلهي نحرسته الله كورابيو إهلدي وكيا قرابي كتير سبيري مع الله كسيو ضمان مدرسة الصومالية سبيري مع الله كسيو إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت هلك واحد نشوفنا آسكي الله نحرسته مرحوم محمد برقد ميغاني وحمال لقنا نسجري آسكي سبان نشوفنا مرحومكو رونهانتي وهوها qof aan la ilaawi karin marxuumku waxa dadkii ka soo qayb qaatay nabadeynta markii beelaha la heshiisiinay dadkii ka soo qayb qaatay buu ahaa marxuumku wuxuu ahaa xildhibaanadii ugu horreysay ee gala baarlamaanka Soomaaliland ilaa maanta la ku jiro inta uu ku jirana waxa lagu xusuustaa dulqaadka iyo dadku adeega
iyo sida xishmadda leh ee uu dadka u tixgelin jiray. إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد برخد ميقنة oo geeriyooday taxdidiisii weeye halkan joognaa qabriga dushiisii ilaahay samir iyo iimaan hay naga wada siiyo eheladiisii khaas ahaan samir iyo iimaan Allah ka siiyo kubadkiisii iyo ehelkiisii iyo aqrabkiisii iyo ooriyihiisii Allahu naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allahu naxariisto ilaahay qabrigii qiyaamaha أو سهل إلهي إذا كركض أنا الله ينقى أقبل إلهي أقبل إستقى كيني الله هذا كيني أقبل سيدا وحوها لين وحوها هدينا هذو ومدى يبدو مسوش شقيين انتو تبابري أرضي إذا ما انتو وحبري بابا أما قرآن هبرا أما علمك لا هبري يا عيدا كبضا waxaan halkan tacsi tiiraaniyada aan laga direynaa xildhibaan maxamed barkad miigane oo leenahay dhammaan qoyskiisa iyo qaraabadii uu ka tagay samiriyeem ayaa naga siiyo dhammaan dadka Soomaaliland oo dhan samiriyeem Allah ka siiyo maanta waxaan joognaa aaskii professor xildhibaan maxamed barkad miigane xildhibaan xamaal runtii wuxuu ahaa aniga intaan siyaasadda soo gelin macalinkayga jaamacadda waxay dhigi jiray meelo badanna waxaan kaga faa'iideysan jiray lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsiin jireynaa xildhibaan professor أحمد برخد ميقني حمال وهارنتي nin taariikh kula gobolka Soomaaliland ilaahay jannatu firdawsa ka waraabiyo eelkii qaraabada iyo asxaabtii oo ka baxay baarlamaanka Soomaaliland iyo dhamaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun cid walba horta adduunyadan ilaahay keenay isagaana qaadanaya waxaan maanta halkan u joognaa aaskii xildhibaan maxamed barkad miigane Allah u naxariisto الله ونحرسته مرحومك waxa uu ifka kaga tagay laba xaas iyo 12 caruur ah Cabdinaasir Ali ile shabakada wararka Soomaaliland Today magaalada Boorama